intii u dhaxaysay 1918 ilaa iyo 1920 waxaa dilaacay xanuunkii weynaa ee lagu magacaabi jiray Spanish flu ama hargabka Spain. hargabkii Spain waxa uu ku dhacay dad ka badan 500 oo milyan oo ruux adduunyada dacaladeeda oo dhan. waxaa kale oo ku dhacay jasiiradihii fogfogaa oo ay ka mid yihiin Pacific Island-ka iyo Arctic-da, waxayna sababtay cudurkani inuu galaafto inta u dhaxayso 50 ilaa iyo 100 milyan oo ruux oo ay cudurkan u dhintaan. badanaa hargabyada markay dilaacaan waxay dili jireen dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee laciifka ah, laakiinse waxyaabaha cajiibka ah ee lagu arkay hargabkan Spanish flu-ga la yiraahdo waxay ahayd dadkii u badnaa ee u galaaftay waxay ahaayeen dadka xoog leh ee u dhaxeeyo 20 ilaa iyo 40 jir. hargabka Spain wuxuu dilay wax ka badan ciidamadii ku dhintay dagaalkii koobaad ee adduunka, waxa uuna ku dilay muddo dhan 25 isbuuc gudahood wax ka badan intii dad ee u dhimatay cudurka HIV/AIDS-ka muddo 25 sanadood dhan. ciidamadii badnaa ee sameynayay dhaqdhaqaaqyada dagaalka adduunka ee koobaad ayaa sabab u ahaa inuu xanuunkan aad u faafo, waxayna ugu noqdeen sababtoo ah laciif waxay ugu noqdeen waxay noqdeen daalkii dagaalka dartiis iyo haraadkii kasoo gaadhay daraadeed ayay laciif u noqdeen, ayagoo arintaasi ay sabab u noqotay in ay noqdaan dad nafaqa darro ay hayso oo weliba ay u dheer tahay weeraradii kimikaalka ahaa ee la isku garaacayay. waxaa kale oo sii baahiyay cudurka ayadoo la isticmaalayo qaab cusub oo transportation ah oo durba dadka meel kasta gaadhsiinayay sida tareemada iyo baabuurta hadda oo xilligaas soo baxay. marka su-aashu waxay tahay maxay yihiin cuduradan faafa oo uu ka mid yahay xanuunkan hadda faafay ee lagu magacaabo coronavirus. coronavirus muxuu yahay? haddaba waxaa su-aasha ugu muhiimsan ay tahay maxay yihiin cudurada sidan u faafo oo isku bedelo musiibooyin ay ku tirmaan ummado dhan oo meel degan? waa cudurada lagu magacaabo pandemic diseaseska. waxaadna ogaataa cudurada inay leeyihiin 3 darajo. darajada koowaad waxay tahay cudurka marka uu yahay mid ku kooban gobol waxaa lagu magacaabaa endemic disease, waa cudur gobolkaas ku kooban. hadduu cudurka uu ku faafo dalkoo dhan waxaa lagu magacaabaa epidemic disease. hadduu cudurka uu ku faafo adduunyada dacaladeeda oo dhan waxaa lagu magacaabaa pandemic disease. cuduradaasi qaarkood waxay wanjalaan oo ay baabi'iyaan dadka ku nool dunida nuskeed ayay marmarka qaar ay dilaan. marmarka qaar waxay burburiyaan boqortooyooyin aad u xoog badan, marmarka qaarna waxay baabi'iyaan oo ay tirtiraan magaalooyin dadkii deganaa dhammaantood. walaal waxaan kaa codsanayaa inaad videogan aad si share garayso oo aad qaybiso. haddaad YouTube leedahayna waad ku upload garaysan kartaa, waan kuu fasaxay free buu ku yahay si ummadeena ay u hesho wacyigelin buuxda oo ku saabsan cuduradan faafa iyo sida lagaga hortagi karo iyo weliba in digtooni laga qabo oo la ogaado iyo in lagu cibra qaato. sidee buu ku imaaday xanuunka la yiraahdo coronavirus-ka? sidee buu ku soo dhashay awalkiisii hore? xanuunkan coronavirus-ka la dhaho marka koowaad waxaa lagu tilmaamaa emergent viruses ama virusyada soo baxa marmarka qaar oo aanan markasta joogin.
sidee buu usoo baxaa? sidee buu bini aadamka ugu soo gudbaa? su-aasha aan ka hadlay rabno jawaabteeda taas weeye. ilaah subxaana watacaala markuu bini aadamka abuuray, waxaa kale oo la abuuray wax badan oo xayawaanaad ah oo ka duwan bini aadamka. xayawaanaadkaasi kala duwan ee noocyada leh, ama ha yaraada ama ha weynaade waxaa ilaahay u qadaray in mid uusan midka kale u gudbi karin waxyaabihiisa oo dhan. cuduradiisa, tarankiisa, arrimihiisa oo dhan. tusaale ahaan, maanta haddaan soo qaadano xayawaanka lagu magacaabo geriga, haddii uu maanta u tago xayawaan kale sida dameerka oo kale ama sida dadka oo kale, wax ka dhalanaya ma laha oo ma yeelanayo taran. sababta maxay tahay? waxaan nahay kala nooc, waxaan nahay kala species. marka waxaa jira wax la yidhaahdo xadka u dhexeeyo specieska, species barrier. xadkaas ayaa kala xanibo in xayawaan kale wixiisa uu u gudbo. marka aadamaha haddii ay aada ugu dhowaadaan xayawaanka qaarkood, waxaa ka dhasha marmarka qaar si lama filaan ah in uu ugu soo boodo oo xadkii soo dhaafo cuduradii ku dhici jiray xayawaanadaasi mid ka mid ah, ama viruskaas si kama inuu uga soo boodo xayawaanka uu bini aadamka ugu soo boodo. haddii ay arrintaasi dhacdo oo uu bini aadamka usoo boodana, waxaa ka dhasho xanuun aan la kontrooli karin oo xadka ka baxa oo aan daawana loo helaynin. siiba xayawaanada ay bini aadamka la leeyihiin, ay dariska leeyihiin, dhammaantood ma wada badno, laakiin xayawaanada qaarkood siiba waxay qabaan xanuuno aada u fara badan, sida doofaarka oo kale, iyo sida coronavirus xayawaanaadka uu kasoo booday oo kale. corona wuxuu kasoo booday baa layidhi mas. marka hore masaska ayuu ku dhici jiro, caadi buu u yahay. maska waa sida hargabka oo kale buu yahay, waxweyn agtooda kama ah. waxaa ka mid ah cudurada kasoo booday xayawaanka ee bini aadamka usoo booday cudurka la wada yaqaano ee lagu magacaabo HIV AIDSka. HIV AIDSka wuxuu ku dhici jiray, ama ilaa iyo haddaba uu ku dhacaa. waa xanuun iska caadi ayuu iyaga u yahay, sida hargabka anaga inoo qabto ayuu iyaga u qabta xayawaanka la yidhaahdo chimpanzeega, mise daanyeerka waaweyn ee daaxuurka. wuxuu u qabtaa sida hargabka caadiga oo kale. laakiinse bini aadamka hadduu ku dhaco, looma maari helahayo. sababti koowaad yaa lahaa oo HIV uu bini aadamka kusoo gaaray, taas waa su-aal kale. laakiinse waxaa weeye, haddii la jabiyo xadka u dhexeeyo specieska kala duwan ee ilaahay uu abuuray, oo u suurta gasho mid ka mid ah virusyada ku dhaca xayawaanka, hadduu usoo boodo xagga bini aadamka, wuxuu noqonayaa wax aan loo maari helin. hadda oo la joogo magaalada lagu magacaabo Wuhan, oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo ruux, waxaa kasoo booday virus. wuxuu kasoo booday masaska, wuxuuna usoo booday bini aadamka. kulley ma cunitaan buu ugu soo booday, ma xidhiir nooc kale ugu soo booday, allahu aclam. laakiinse uu kasoo booday xadkii loogu talagalay bini aadamka ayuuna usoo booday. cudurada sidan oo kale usoo boodo wax daawo ah ma laha. sababtoo ah bini aadamka daawada lagu sheegahayaba waxaa weeyaan, bini aadamka wuxuu leeyahay immune system iyo difaac ayuu leeyahay. difaaca bini aadamka ayayna xoojisaa daawada badankeeda. marka difaaca jirkaaga ku jiray ayaa markaasi la dagaalo, ama marmarka qaar waxaa loo helaa qaab lagu dili karo jirkaaga asagoo ku jiro. laakiinse virusyada noocan oo kale ah waxay qabaan waxa la yidhaahdo mutationka. waxaa weeye, markastoo la isku dayo in mid la xayiro oo la hareereeyo, viruskii wuu isbedelayaa isla markadiiba. nooc horle ayuu qaadanayaa. marka noocaas ka horle uu qaadanayo,
wuxuu u qaadanayaa asagoo isu dhalahayo intaasoo bilyan. yani saacadiiba waxaa laga yaabaa boqolaal kun oo viruskii ah inuu jidhkii kolba nooc hor leh usoo galo oo ugu dhasho. marka waxaa adkaanayso in la sameeyo hal nooc oo loo dilo. bakteeriyada badankeeda waxay leedahay hal nooc, halkaas nooc markii laboratoryga lagu dhex dilo hadhowtana tii unbaa jidhka ku jirto, jidhkaa loogu tegayaa, waa lagu dilayaa. marka laakiinse viruska wuxuu qaadanayaa weji horle iyo nooc horle ayuu qaadanayaa, marka way adag tahay in la dilo. marka xayawaanada la iska xaaraantimeeyey ee diintu xaaraantimeysay waxaa loo yidhi la iskaga ilaaliyo oo la yidhi laga fogaado. midka tusaale ahaan hadda Spanish flugan aan hadda ku bilowno waxaa la yidhi wuxuu kasoo booday baa la yidhi doofaar, waxaana la dhahaa swine flu. swine flugaas 100 milyan ee ruux dilay ka hor wuxuu kasoo booday doofaar, ayuu kasoo booday doofaarka ayuu kasoo booday, bini'aadamka ayuu soo gudbay. marka waa arin aad iyo aad cajaa'ibteeda u leh, waxyaabo badan oo diinta ay dadka ka reebtay, xikmad weyn ayaa ku jirta, laakiinse dadka ma garan hayaan. saas daraadeed walaalayaal waxaan idinku codsanayaa inaad videogan faafisaan. duruus badan oo ku saabsan pandemic diseaseski adduunyada ka dhacay taariikh ahaan ayaan idin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala, kasoo bilaabato taariikhdii hore ee macnaha iyo xilligan mucaasirka ee casrigan hadda la joogo, cuduradii soo dhacay ee pandemic diseaseska ahaa iyo symptomska lagu gartay iyo characteristicska ay qabaan, si ummadeena ay u noqoto dad ku hubeysan cilmi oo ay at least ugu yaraan insha allahu tacaala ay garan karaan sida ay ula dhiil gareeyaan waxaan oo kale haday qabsato. Soomaalida taariikh ahaan waxaa jirta waxyaabo ay soo mareen sida cuntada, sida xanuunadii xanuunka lagu magacaabi jiray furuqa, waxaa jira fantada oo Soomaalida hadda sheekooyin hore ay ka haysa laakiin way iloobeen. maadaama Soomaalidu ayna wax qorin oo aynan ahayn dad record leh, ma garan karna dadkii kaga dhintay xanuunadaasi insha allahu tacaala. laakiin si hadda maadaama casrigan la joogo waa inaan yeelano wacyi. waxaana ka soo qaadanaynaa ummadihii wax qori jiray iyo ummadihii maaragtay ay soo mareen xanuunada noocan oo kale insha allahu tacaala. marka wacyigelintan faafi aad iyo aad baad u mahadsantahay dhageystayaal, daawadayaal, aad baana idin ixtiraamaya, waadna mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.